wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada toddobaadka iyo Toronto idinkaga imanaya studio Som TV ee galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada. daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan lahow hanagoo idinku baridinayna hadba xilliga iyo xaaladda aad ku jirtaan. daawadayaal iyo saaxiibayaalba magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto ayaan ku qaadaa dhignaa guud ahaanba wararka khuseeya Soomaalida. waxaanuna waraysiyo la yeelanaa haldoorka Soomaaliyeed ee dalkani Canada iyo waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwooda booqashada ku yimaada dalkani. barnaamijka maantana waxaan idinku soo gudbin doonaa waraysi aan la yeeshay xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah xisbiga mucaaradka NDP ee gobolkan Ontario ee dalkani Canada oo shaqooyin muhiim ah oo Soomaalida qanciyay ka haya magaalo weyntan Toronto ee dalkani Canada. guulaha uu xildhibaanku durba horseedka u noqday ayaa waxaa ka mid ah muddo fara badanba Soomaalidu waxay isku dayeysay in ay hesho maalmaha xurriyadda Soomaalida oo ah bisha June ilaa iyo July in ay u hesho siyaabo kala duwan oo ugu dabaaldegaan maalmaha iyaga ah. waxaa dhici jirtay in shacabka Soomaaliyeed bilaabo fasax in loo qaado iyo waliba ogolaansho laga helo xukuumadda dalkani. balse mahadiha ka gaadhay xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah xildhibaanada gobolkan Ontario ee dalkani Canada xisbiga NDP ee mucaaradka ah ayaa ku guuleystay biil uu u gudbiyay golaha baarlamaanka ee gobolkan Ontario in loo aqoonsado 25 June ilaa iyo 1 bisha July ama Luulyo asbuuca Soomaalida. waa waqtiga ay ku aadan tahay xurriyadda Soomaaliyeed waana mid gabi ahaanba girgishay shacabka Soomaaliyeed ee dalkani Canada. Faysal ayaa waxaan jeclahay bal in aan ka waraysto siyaabaha ay ugu suurto gashay in si dhib yar u guusha iyada ku hantiyo. Faysal ku soo dhawow barnaamijka toddobaadka iyo Toronto. aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed. waan salaamayaa dhammaan dhageystayaashaada ama daawadayaashaada qiimaha iyo qaayaha mudan. maxamed waa runtahay waxa weeyaan biilkan waxa aan hor dhignay baarlamaanka. waad la socotaayo 30 sano ama 40 sano ugu dambeeyay Soomaalidu ay halkan ay aad ugu soo haajirtay ama ay u deganayeen. dadku waxay u dabaaldegi jireen toddobaadka Soomaalida. toddobaadkaas oo isugu iman jireen oo kubadda ciyaari jireen dabaaldegi jireen laakiin ma aysan ahayn mid baarlamaanka gobolka Ontario ama dowladda Canada ay maartay ansixisay ama loo yaqaan inay tahay toddobaadka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida Somali Heritage Week. marka runtii waxa ay maadaama ahaa xildhibaanka ugu horeeyay gobolka Ontario loo doorto marka mas'uuliyad gaar ah ayaa saarneyd inaan runta aan sharciyeeno aan sharci ka dhigno. marka biilkaas ayaan soo hordhigay baarlamaanka. baarlamaanka dhammaan xildhibaanada baarlamaanka gobolka Ontario way ugu raaceen. waxay yiraahdeen waa arrin maartay runtii taariikhi ah loona baahan yahay waqti hore in la sameeyo. arrintaasna waa la dhaqan geliyay. waxayna noqonaysaa marka sanadkan inuu noqdo sanadkii ugu horeeyay ee si sharci ah gobolka Ontario looga dabaaldego Somali Heritage Week oo bilaabanaya 25 June ilaa iyo 1 June. weekaas ama toddobaadkaas Maxamed wuxuu u leeyahay taariikh gaar ah dadka Soomaaliyeed khaasatan dadkeena halkan jooga ee reer Ontario si gaar ayuu maartay inoogu leeyahay. maxaa yeelay dhulka inuu ka nimid ama inuu ka soo haajirnay dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin geeska Afrika. geeska Afrikana waxa weeyaan waa toddobaadkii sharafta iyo gobonimada ummadda Soomaaliyeed. wada socotaay waqtigii gobolada waqooyi 26 June ay ka xoroobeen Ingiriisigii Imbratoriyadda Ingiriiska. 27 kana waa waqtigii wadanka Djibouti uu isna uu ka xoroobay Imbratoriyadda Ingiriiska Faransiiska iyo gobolada Koonfureed iyo waqooyiga oo midoobay oo halkaana lagu abuuray wadanka Soomaaliya. marka taasna waxay u tahay sharaf iyo gobonimo. anagana waxay noo tahay maaragtay taariikh aynu leenahay oo hidaheeni iyo dhaqankeeni iyo afkeeniina ay noqonayso marka inaynu xusuusnaano sidoo kalena inaynu maaragtay xusuusano oo aynu maaragtay dib u eegno dadka bulshadeena ka mid ah ee gobolka Ontario waxyaabaha waaweyn ee maamuus kale ama ba lagu dayan karayo sameeyana inaynu xusno aqoonsano
kana xaajoona toddobaadka dhaqankeena wixii maaragtay sida aynu nahay ummadaha kalena aynu barno toddobaadkan inuu yahay toddobaadkeeni dhaqankeena iyo hiddaheenana dadka kale ay bartaan wahagaag aad ayaan kaaga mahadcelinayaa xildhibaan dadka Soomaalida ee reer Canada arrintan iyada way u hanqaltaageen xuraansi fara badan oo sameeyena si wanaagsan ayay arrintan ula dhacsan yihiin marka la gaaro 25 June dadka Soomaaliyeed maxaa u furan oo tasdiilaad ah oo ay heli karaan si ay waqtiga isaga u dabaaldegaan ilaa iyo 1 July marka ugu horeysa maadaama baarlamaanku uu ansixiyay dabcan waxa weeyaan waxay noqonaysaa in dadka oo dhan gobolka Ontario degan inay ogaadaan inay tahay toddobaadkii Somali Heritage Week si markaas maaragtay loo ogaado marka dadku is weydiinayaan heritage-koodu muxuu yahay marka waxaa loo baahan yahay marka dadka Soomaalidu inay dadka baraan dhaqankooda hidahooda suuban sida la socotay 30 sano ugu dambeeyay magaceena wuxuu aad iyo aad ba maaragtay magaxmo fara badan iyo dhib badan ay dadkan la kulmi jireen marka waxaa loo baahan yahay marka waxayna wanaagsan suuban tusaalaha waxaan lagu noqon karna inaan soo bandhigno dabcan waxay noqonaysaa hadda waxaynu ku jirnaa pandemic meel walba way xiran tahay way adkaanaysaa inaynu isu nimaadno oo kulano laakiin waxaan filayaa in zoomska iyo meetingyo badan iyo xitaa in laga waxaajoodo toddobaadkaasba laga hadlo maaragtay dadka macallimiinta ah ama maaragtay dhaqaatiirta injineerada iyo taariikhyahanada nimanka maaragtay dhaqankeena yaqaana marka dadkii maaragtay ay la hadlaan Soomaaliduna marka ay ku faanaan sidii maaragtay 25 June ilaa 1 July uu yahay Somali Heritage Week wagaag xildhibaan 30 sano ugu dambeeyay sida adiguba sheegtay dadka Soomaaliyeed waxay xambarsanaayeen aragti foolxun oo kaga imanaysa caalamka meel kasta oo ay joogaan waqtigan isaga ah ee 25 June ilaa iyo 1 Luulyo haddii aad ku guuleysatay in dalkan Canada looga aqoonsado asbuuca Soomaalida dadka Soomaaliyeed in ay sawir wanaagsan ka bixiyaan Soomaalida oo ay la xiriiraan saxaafadda oo bacdama laga sheekeynayo dhaqanka Soomaalida oo baarlamaanka gobolka looga talinayo ansixiyo aqoonyahanka Soomaaliyeed maxaad ku boorinaysaa maxamed anigu waxaan xildhibaanka gobolka Canada wali lagama aqoonsan wali maaragtay waa shaqo inoo taala in dadkeenu u dooranay la weydiiyo sababta maaragtay looga hirgelin lahayahay dhinaca Canada laakiin anigu mas'uuliyadda la saaray iyo wakiilkana aan maaragtay ahaa qofka ugu horeeyay Soomaaliyeed waxa weeyaan baarlamaanka Ontario waa laga ansixiyay Ontario oo dhanna waa laga dabaaldegaya waana mid taariikhi ah oo bill kaasi wuxuu markaa uu ka jira hadda gobolka Ontario sidoo kalena waxa maadaama also gobolka Manitoba aan runtii maaragtay ahayd meeshii aan kusoo degay iyadana maaragtay xildhibaan kale oo la yiraahdo Ozuma iyadana waxay ka hirgelisay Somali Heritage Week halkaas waa runtaayoo dabcan 30 sano ugu dambeeyay Soomaalidu magaceena iyo sharafteena iyo dadnimadeena iyo gobonnimadeena waxay ahayd mid aad iyo aad maaragtay dhibaato iyo negative badan lahayd marka waxaan rajaynaynaa marka dabaaldega Somali Heritage Week inuu noqdo mid ma garanaysaa aynu ku showcase garayno dhaqankeena suuban iyo dadkeenu inay yihiin dad maaragtay contribution baaxad weyn leh gobolkan Ontario ka geysanaya dabcan waa loo baahan yahay laftigeeda maxamedow waad ka dhawaajisay Canada waad ka dhawaajisay weli Canada lagama ansixin arrintaas marka taana waxay noqonaysaa hadii laga ansixiyo Canada way fududaanaysaa marka gobol kasta in looga dabaaldego laakiin hadda laba gobol kaliya ayaa looga dabaaldegayaa ama laga xusay Somali Heritage Week waa gobolkan anigu markii horena aan ka imido influence-ka aan ku leeyahay xisbigayga New Democratic jooga Manitoba iyaguna maaragtay biilkii aan geynay bay iyaguna qaadeen oo ay CDC ay gobolka Manitoba looga ansixiyay iyo Ontario labada meelood waa labada meelood kaliya ee aan anigu maaragtay influence aan ku lahaa laakiin wadanka oo dhan waynu u baahannahay in laga sameeyo taan waxaan filaynaa inaynu weydiino xildhibaanadaynu u dooranay dhinaca federaalka why sababta aynu Canada ay u aqbal weyday Somali Heritage Week wahagaag Faysalow markaan ku soo noqono gobolka Ontario ee adiga xildhibaan ka tahay marka ugu horeysa waa gobolka ugu weyn ee ugu shacbiyad badan ee ugu dhaqaale badan dalkan Canada nasiibtaas aad u heshay waxaad kaloo xildhibaan ka tahay magaalada ugu weyn dalkan Canada ee hooyada ganacsiga dalkani ah
marka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada weyn ee Toronto in ay abaabul sameeyaan oo maalinta iyada ismuujiyaan waxaan daba socdaa maalinta Greega ee lagu qabtay Danforth oo kala jidka la xiraa cuntooyin kala duwan baa la soo dhigaa ciyaaro kala duwan baa la soo bandhigaa dharka hidiyaha dhaqanka ayay qaataan adoo sawirka isaga ka faa'iideysanaya maxaad oranaysaa shacabka Soomaaliyeed dabcan waa runtaayo waxaasoo dhan iyo wax ka badan ba way suurtageli karayaan maxaa yeelay wuxuu noqonayaa mid gobolka Ontario uu aqoonsaday oo taariikhi ah lana ogyahay marka Soomaali toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda iyo hidaha Soomaalidu inuu yahay toddobaadkaas dadka qaarkood waxay yiraahdaan waa la socotaa June qowmiyado fara badan baa u dabaaldegaya taariikhda iyo dhaqankooda bisha June bil dhan ayay qaataan laakiin inaku wiigaas ayaa si gaar ah taariikhdeena iyo sharafteena iyo gobonimadeena qiimo gaar u leh marka dabcan waxay noqonaysaa hadda waxaynu ku jirnaa waqti runtii pandemic ah laakiin dabcan waan rajayn doonaa marka wax walba furmaan in waxyaabaha aad sheegtay wax ka badan dadka Soomaalida ku xiran tahay sida ay maaragtay dhaqankooda iyo hidahooda iyo dadnimadooda iyo iyagu waxa ay yihiin inay soo muujiyaan caruurteena halkan ku kortay ama ku dhalatayna maaragtay kalsooni darro badan haysatana inay u noqoto mid ay ku faanaan taariikhdeeni hore iyo maaragtay haddana aynu abuuri karno mid wada jir ahaan qowmiyadda Soomaalidu ay midnimo iyo wada jir iyo maaragtay dhaqankooda kor u qaadaan inay ka bilaabanayso wagaag xildhibaan Faysalow arinta ugu weyn ee hadalhaynteedu socoto waxa kamida sida dhibka yar ee ugu guuleysatay xilli aydan xilka haynin ee aad xisbi mucaarada tihiin oo waliba xilka dalkani uu hayo xisbiga conservative-ka ah sidee kuugu suurtowday adoo xisbi mucaarada ka socda xukuumadeena aydan markaa idinka gacanta ku haynin inay si dhib yar kuugu suurtowdo shan wax weeyaan maxamed wax weeyaan xildhibaanka waxa looga baahan yahay in uu ka shaqeeyo sidoo xildhibaanada kale qaasada ku dawladda ah sidoo uu taageero uga heli lahaa biilkan ma biilkii ugu horeeyay ee baarlamaanka aan ku guuleysto xaafadeena aan guulo uga keeno waxa kamid ahaa biilkaygii hore motionkii hore ee ahaa maaragtay work integrated learning oo ahayd in ardayda jaamacadaha iyo collegeada dhigta in ay helaan way aragnimo shaqo oo ah internship co-ops iyo placements taas oo laftigeeda oo aan dawladda ka codsaday in la abuuro 27000 internships placements taa lafteeda dawladdu way ugu raacday oo waxay u arkaan maaragtay in talooyinka aan baarlamaanka soo hordhigayo mid maaragtay igala shaqeyn karayaan iyaga laftigooduna ay magac ku helayaan waxaa kaloo la socotaa iskuulada xaafadayada waa la socotaa iskuulkii dab ku qabsaday York Memorial wuxuu ahaa iskuul caana oo taariikhiya oo maaragtay askartii dagaalkii labaad ee adduunka kasoo qayb galay loogu magac daray iskuulkaas dab culus baa ku dhacay waa kii burburay dabcan waxa weeyaan dad fara badan oo nimankan aqalada iyo dhista ee hantilayaasha ana waxay doonayeen maadaama hadda laga furayo Eglinton Crosstown-ka stop cusub oo la yiraahdo Kilsdale iskuulku uu ku dhagan yahay inay iibsadaan oo kondooyo iyo waxyaabo kale ka dhigaan dagaal weyn baan u galay waxa aanan ku guuleystay inaan wasiirka aan convince kareeyo in iskuulkaasna loo dhiso sidiisii uu ahaa taariikhdii ma garanaysaa ciidamadii beloved school Kenny iyo taariikhdii ciidamadaas dagaalkii labaad ka soo qayb qaateena maadaama iskuulku qiimo weyn iyo taariikh dheer xaafadda u leeyahay in sidiisii loo dhiso waxa kamid ah la socotay guulaha kale aan ka gaaray xaafadda in maaragtay iskuulkii Nelson Boyle oo ahaa dugsi sare oo qolada Toronto School Board ay lahayd iskuulka Catholic ayaa doonayay iyana waxaan doonaynaa ilaa nala siiyo ilaa iyo 14 milyan iskuulka ma gudbinayno taana waxay noqotay inaan maaragtay aan ku guuleysto inaan wasiirka educationka aan qanciyo haddana iskuulkii xaafadda laftigeedii ardaydii Catholic ayaa iskuulka ku dhiganaysa marka dabcan waxa xildhibaan ahaan waxa laga baahan yahay kaliya inaad qeylqeylisid maaha laakiin inaad la shaqeysid dadka kale si aad guulo xaafadaada ama dawlad ahaw ama aadan ahaanin inaad soo hoyin kartid marka guulo fara badan waxaan ku guuleysanay for the first time inaan xaafadda ka keeno covid testingki Church Street hospitaalkii hore in laga sameeyo
oo ay maarad inkastoo nagu qaadatay 7 bilood laakiin haddana waan ku guuleysanay waxa weeye waxyaabo fara badan anigoon dawladda ahayn ayaan ku guuleysanay biilka Somali Heritage Week-na wuxuu ka mid yahay biilashaas iyo mooshinada noocaas oo kala ee aan maartay kala shaqeynay marka waxa loo baahan yahay in aad xildhibaanada kale aad hanan karto kalsoonidooda si maartay problemka xaafadaada ka jira aad wax ka qaban kartid marka runtii waxaan oran karayaa inaan dagaal fara badan 3 sano hadda aan joogay baarlamaanka inaan guulo waaweyn aan u keenay oo xitaa ka waaweynaa kuwii ma garanaysaa xildhibaanada 15 sano xaafadda fadhiya وهاجك حلوان فيصل لو حافظ يورك ساوث ويسترن اياد حلبان تهي dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa xaafada degan waxaad ka dhawaajisay oo aad ugu faraxsanahay 72000 dad gaaraya oo dabcan san filayo dhalinyarada ugu badan in la soo ogolaaday in ay si hordhaca shaqooyin u helaan si ay shaqooyinkaas berri u noqdaan markaan Soomaali ku sharaxno because waxa weeyaan ardayda dhibaatada ugu weyn ay haysata ardayda jaamacadaha dhigta iyo college-yadu iyo kuwa xitaa qalin jibiyay iyo kuwa aan school badhiganaynin waxa weeyaan waxa la weydiinay markay shaqo apply gareynayaan way aragnimo ama experience marka experience-ki marka waa inaan fikir cusub la nimaadno maadaama aan anigu aan ahay official opposition opportunities critic for youth engagement in marka sidee baan dhalinyarada aan ku caawin karnaa markaas caruurtii haddii aanan way aragnimadii aanan la siinin markay iskuulka ay dhiganayaan waxay noqonaysaa marka inay ku qaadato 10 sano 20 sano inay shaqo helaan marka inay way aragnimo helaan iyagoo iskuulka dhiganaya in loo ogolaado marka inay internship oo paid ay helaan co-ops oo paid inay helaan placements oo paid inay helaan oo lacag lagu siiyo iskuulkiina ay marka la furan ay dib ugu noqdaan marka qofkaas wuxuu ogaanayaa fiilka uu baranayo inuu yahay waxa uu doonayo not only kuwaas kaliya ma kuwii qalin jibiyena inay qualified ay u noqdaan iyaga laftigooda ka faa'iideysan karayaan kuwa aan shaqo la'aanta hayso ama iskuulka high schoolkii ka saaqidayna in la xirfad la siiyo farsamada oo maartay skill tradeska oo kale taana dawladdu ay lacag ku bixiso si dhammaan dhalinyarada yaryar ay u noqdaan kuwa shaqeeya iskuul dhigta iskuulka markay dhiganayaana kuwa shaqo taga markaas marka arrintani waa arrin cusub laakiin waa arrin anigu aan soo hordhigay oo runtii qoladan dawladda hadda joogta gobolka Ontario-na way qaadeen laakiin waxa looga baahan yahay investment joogto in la sameeyo si marka aynu la dagaalano unemployment-ga youth-ka hayso oo aad iyo aad u fara badan macnaha tiro aad u weyn ay tahay فيصل واحد لغو فرحو oo aad u fiican oo aan filayo dadka waalidiinta iyo dhalinyarada daawanaya intaba inay aad kaaga mahad celinayaan arrintan waa arrin cusub waxay u baahan tahay inaan dul istaagno waalidiinta Soomaaliyeed ee daawanaya ee ay caruurtaas ama iskooladaba ka tagay ama iskooladaba dhiganaya ee u baahan shaqooyinkaas lacagna lagu siinayo waayo aragnimo uu ka qaadanay in ay helaan tilmaanta asin lahayd maxay noqon lahayd haddii uu ilmihii aysan iskuul dhiganaynin oo maarad waxaa jira aan ku guuleysanay inaan ururada shaqaalaha iyo community intii la isu keeno waxaa la abuuray organization la yiraahdo community benefit network oo dhalinyarada u diyaarinaya markaa in ay lagu dhiirigeliyo inay galaan skill tradeska oo waxa aan xooga saarayna marka xaafad kasta oo shaqo laga abuurayo haddii noqon lahayd shaqo oo ku saabsan kasoo qaad Metrolink oo kale kasoo qaad isbitaalada dhisayo oo kale dadka xaafadda degan dhalinyarada degan in iyagana way aragnimo ka qaataan skillkiina lagu tababaro oo la gaarsiiyo kuwaas waan ku dhiirigelinaynaa inay maartay haddii ay doonayaan skillkaas inay qaataan waan ku xiri karnaa waxa jira xitaa Somali workers network baa jira ururka waxa jira ururka shaqaalaha Soomaaliyeed oo iyagu laftigoodu la shaqeynaya ururkaas kale oo loo baahan yahay in ay laftigoodii way raadinayaan dad noocaas oo kala waana ku xiri karnaa wada socota Cabdi Xaaji Yuusuf baa ayaa hogaamiye ka ururada shaqaalaha iyo Faadumo aan soo way badan yihiin Soomaali badan oo networkaas ku jira arrinta marka kuwa jaamacadaha dhiganayaan jaamacadooda in lagu xiro oo loo ogolaado marka shirkadaha private-ka iyo dawladuba in iskuulka markay dhiganayaan ay internship-ki placement-ga paid-ka every student oo jaamacadda dhiganayaan in uu helo baan doonaynaa oo toos ay meesha iskuulka laftigiisa ay ka apply garan karayaan xildhibaan waqooyiga America waxaa si aad uga socda ololo ballaaran oo ku wajahan ciribtirka jinsi nacaybka dawladuhu
lacagayo fara badan ayay ku bixinayaan waxaadna moodaa dadka Soomaaliyeed inay ka qatan yihiin ama ayna la soconinba waxaa jira oraahyo dhahaya in goob kasta oo shaqo dadka midab kale ay ka dhex muuqdaan maxaad kala wadaagi lahayd arrinta iyada dadka Soomaaliyeed arrintaasi horta dee midabta koorkii weli wuu jiraa waana uuna xididaystay oo maaragtay buddiga aas-aaska waddankeenana qayb weyn ayuu ka ahaa weli wax initiative ah oo runtii arrintan wax weyn ka qabanaya nimankan federaalka gobolkan maxaa la yidhahdaa federal governmentigan uu Trudeau hogaaminayo iyo Fordba weli maanu ka arag wax la taaban karo oo arrintan ku saabsan tirtirka takoorka iyo shaqo abuurid hadday noqon lahayd dadka maaragtay madow iyo Soomaalidu ay ka mid ka tahay waa la socotaayo weegan 215 qof oo indigenous ah oo residential school ka dhiganayay ayaa BC laga helay qabuur waradeed maaragtay la wada aasay taasna waa dareemaysaa marka school kasta oo residential schools ka ahaana inay jiraan qabuuro noocaas oo kala ah marka wax badan baa looga fadhiyaa inaynu dowladda gobolka iyo saddexda qaybood ee dowladeena dowladaha hoose iyo dowladda dhexba in wax weyn oo aan ahayn dee maaragtay qodob maqashi waxna uu qabo aysan ahayn laakiin weli wax maxamed aan kuu sheegi karayo arrintan oo xoogan oo laga qaban karayo weli maanu arag laakiin waxaa loo baahan yahay dadkii inay is abaabulaan dhibaatadooda la arko inay qorshe ay yeeshaan ama vision inay ganacsatada ah inay is abaabulaan oo ururo mideeya oo ganacsatada ay samaystaan xirfadleydu saas oo kale ay u samaystaan way jiraan ururada shaqaalaha ee Somali Workers Network oo qayb ka ah inay u ololeeyaan dadka Soomaaliyeed kuwa yaryar iyo kuwa waayeel kuwa kale ee shaqada raadinaya inay shaqooyinka unionka inay geliyaan ama kala shaqeeyaan marka taas waan u baahanahay marka dadka markay abaabulan yihiin maxamed way fududahay dhibaatooyinkii marka in la xalliyo jira anaga dhibka ugu weyn ee haysto waxa weeyaan arrinta aqalada iyo shaqo la'aan baahsan taan waxaa loo baahan yahay in la abuuro waxa weeyaan pandemican dhibaato fara badan ayuu keenay oo waxa weeyaan pressure badan ayaa jira dhaqaalo xumo badanna wuu taagan yahay laakiin haddaan su-aashaas si toos uga jawaabo weli takoorkiina weli wuu taagan yahay systemic racismkiina weli wuu jiraa marka waxaan u baahanahay leadership dowladdan hadda joogta iyo kuwii hore toona wax priority gaar uma laha laakiin annaku new democratica dabcan vision iyo qorshe aanu arrinta kusoo afjarno waanu haynaa laakiin waxay noqonaysaa inaan dowladda noqono doorashada soo socota arrintan iyada dadkan indigenouska la dhaho ama Soomaalidu waxay u taqaanaa hindida waddanka loogu yimid ayaa loo yaqaanaa waa saad sheegtay 215 ayaa la helay oo sidaad sheegtay waa lagu aasay iskool markaas ay hoos imanayeen dhiganayeen waalidkood caruurta weli laga soo qaatay si xoog ah looga soo qaatay la yiri waxaad tihiin dad ma garanaysaa ay dhaqankoodu hooseeyo la doonay in la ilbaxnimo la gaadhsiiyo caruurtii markii meesha la geeyana intii la wada laayay ayaa si wada jir ah oo xabaalo warareed ah lagu wada aasay marka arrinta dadkaasi ay leeyihiin indigenouska waxa weeyaan in school kasto caruurtoodii la geeyo residential schoolka ah inay weli taagan yihiin qabuuro noocaas oo kale inay jiraan marka iskuullada in la baaro oo dib loo eego horta la ogaado dowladda Kenya waxaa looga baahan yahay runtii maadaama iyada mas'uul ka ahayd the federal governmentiga iyo kaniisadda maaragtay Catholicaba inay wax weyn arrintan ka qabtaan in maaragtay apology weyn la siiyo la baadi goobo bugaagtii iyo magacyadii iskuulladan iyo dadkii dhiganayana la soo qofo taariikhdoodii iyo wixii meesha ka dhacay waxaad la Faisal meesha ka imanayo waxaa jira dhaqdhaqaaqan isaga ah waji cusub uu yeeshay oo la socotaa waxaa la bedelayaa wadooyin waaweyn oo caalami ah magacyadoodii baa la bedelayaa iskoolada la bedelayaa iyo Allah u naxariisto hodanaa lagu bedelay dadkaas oo dhan magacyada watay waxa lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen dadka koorka shacabka Soomaalida ee faraha badan ee ku nool dalkan Canada guud ahaan gaar ahaan gobolka Ontario feejignaan intee la eg ayay u baahan yihiin marka laga fiiriyo siyaasiga ay dooranayaan wax weyn maxaa yeelay aniga hadda xaafadda aan laga doortay 3 sano kaliya ayaan xildhibaanahay laakiin dadkii xaafadda laga dooranayo 30 sano ugu dambeeyay maalin qura xitaa kumayna fikirin inay keenaan Somali Heritage Week oo muhiimad gaara dadka Soomaalida u leh
waa dareemi kartaa mar inaad doorato qof adiga ku adeegaya iyo qof kaa adeeganaya marka taasna weli dadkeenu inta badan waxa weeyaan dhaqanka doorashada iyo maaragtay dimuqraadiyadu way ku cusub tahay dadkeenu inta badan codkooda way iska khasaari jiray laakiin hadda waxaan filayaa inay sidoo hore ay ka wanaagsan yihiin maxaa yeelay way dareemaya consciouskii wuu soo kordhayaa waa runtaa arrintan aad sheegtay kale maaragtay taariikhdii hore buddiga u ahayd aas-aaska wadankan ee ku salaysnaata koorka khaasada noqon dadka madow waxaad sheegtay iskuulkan Vaughan oo runtii ahaa iskuulkii hadda Hodanale lagu bedelay magaceeda waxayna tahay qofkii ugu horeeyay Soomaaliyeed iskuul loogu magac daro runtii Allah u naxariisto maartay gacan ka xaq daran ayaa dishay iyadoo shaqo wacan haysay marka ninkaas laftigiisa Vaughan wuxuu ahaa nin slave owner ah waxa weeye dadka madow ayuu lahaan jiray marka in inagu halkan ku nool in dad madow inay lahaayeen ninkii hadda arrintan residential schoolka ugu weynaa ee aad buddiga u ahaa waa Egerton Ryerson ninka la yiraahdo jaamacadda dhan Ryerson hadda dadka indigenous waxay leeyihiin waa in jaamacadda la yiraahdo ex Ryerson Soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay marka iskuuladaas in magacyada laga bedelo wadooyinka laga bedelo si maaragtay Canada ay u noqoto wadan horu socod ah marka hadda qolooyinkan hadda dawladda ah waa dadkii taariikhiyan marka dib loo eego qayb ka ahaa طبعا dadka cusub ee hogaaminaya waa laga yaabaa inay fikrad ka duwan ay qabaan marka isbedel weyn oo loo baahan yahay oo lagu soxo waxyaabahaas oo dhan annaga khaasatan iskuulada dib weyn baa naga haysta caruurteena ma garanaysaa marka inay ogaadaan dadka ay u dooranayaan school trustee-ga dadka ay u dooranayaan baarlamaanka gobolka dadka ay u dooranayaan baarlamaanka federaalka waa muhiimad gaar ah ay u tahay maxaa yeelay waa qofka adiga ku adeegi lahaa telefoonka ma ka jawaabaa ma ku jaban yahay dhibaatada ma xalin karaya waxyaabahaas waxa weyn waxay hadda Soomaalidu ay ka foojignaanayaan in ogaan doonaan dabcan waa runta waxa loo baahan yahay marka in ay ogaadaan cidda ay dooranayaan maxaa yeelay waa qofkii iyaga u adeegi lahaa marka awal maysan codayn jirin laakiin hadda intii ay heleen maaragtay dad Soomaaliya oo federaalka iyo provincialka u ordaya waxay noqotay in ay marka codeeyaan oo qofka Soomaaliga ay u codeeyaan laakiin marna waxa iman doona qofka Soomaaliga kaliya kuma filna ma yahay qof adiga ku adeegaya taasna waxaan doonaynaa halka aynu u gudubno marka oo la yiraahdo qofka Soomaaliga daacadda ah ma qabiil baynu ku dooranayno uma baahna qabiil baynu ku dooranayno waxaan u baahanahay ma yahay qofkii ku adeegaya adiga Soomaaliga taasna waxaan filayaa in maskaxda dadku ay taa ay gasho ayaa wanaagsan kadibna qofkii walaalkeen ah ee meel loo doorteena mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadaas waxa loo baahan inuu ka soo baxo wahgeed Faisalow markaan ka hadlayno arrimahan cudurkan koronaha oo sida ay saxaafadda dalkan iyo aqoon-yahanaduba qirayaan aad ugu habsaday dadka danyarta ah xaafadda aad degan tahay xaafadda aad mas'uulka ka tahay York South Western waxay ka mid tahay xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin hotspots baa nahay cudurkuna uu sida laxaad kale ugu sii fidayo waxaad ii sheegtay in aad u ololeyso oo ku suurta gashay bara talaalka lagu qaato in aad samaysay dadka faraha badan waliba kuwa afka Soomaaliga ku hadla adoo la hadlaya maxaad ii lahayd oo ku wajahan cudurka isaga dabcan cudurkan waa cudur runtii dad badan oo qowmiyadeena ah ayaynu ku weynay oo la socota dad badan baa dhintay sanadkan wuxuu ahaa sanad runtii kii horeba maaragtay dad fara badan oo qowmiyadeena ah dhibaatada inay soo gaadhay marka dabcan cudurkan waa cudur jira weeyaan marka mar walbana message-ka aan dadka oo dhan aan gaarsiinayo baanan gaarsiinaya dadka Soomaalida ah dhakhtarkaaga la tasho qoyskaaga la tasho laakiin talaalka anigu waan qaatay runtii maaragtay waana loo baahan yahay talaalka in la qaato si maaragtay aynu caafimaad u helno maaragtay marka taan waxa ku xiran qof dadka qaarkood waxa laga yaabaa talaalka inaysan rabin laakiin waxaan oran lahayn maaha in la khasbo waa in ay helaan waa wacyi gelin inay fahmaan inuu faa'iido u leeyahay marka in qoyska la tashadaan dhakhtarka la tashadaan ay ogaadaan marka dad badan waxa jira caafimaad qabay dhakhtarka ay tageen way geeriyoodeen xitaa maysan ogeyn in cudurka uu hayo marka qofku micnihiisu maaha inuu sariir seexdo qof isagoo iska socdo ayuu iska dhacaya maalmaha qaarkood marka waxaan cudurkan ma garanayn waxa uu yahay aniga dhakhtar miihi laakiin waa cudur maaragtay runtii adduunka oo dhan saameeyay dib weyn leh marka hadda laftigeedana maaragtay waxyaabaha aynu u xirannahay pandemic lockdown-ka aynu ugu jirana qayb weyn ayuu ka yahay marka hadda waxaan ku guuleysanay inaan keeno dadka waayeelka oo kale xaafadooda aan ugu geyno
waxaan garanayaa xaafadda 1901ka ayaan u ololeynayay in la geeyo talaalka marka meesha waan tagnay marka dad Soomaali iyo dad madow iyo dad badan oo qoomiyada kala jaad ayaa ku jira yar Soomaaliya ku jira wuxuu yidhi ma doon inaan qaato khalad baa la iga sheegay waana dhoofayaa marka macnaha waa qof dhalinyaro ma fahamsanaba macnaha waa in dadka ay akhriyaan wax fahmaan marka aqalkaaga baa lagu yimid oo lagu keenay ka faa'iideyso marka dadkeena waxay gelin badan oo loo baahan yahay in maartay ay fahmaan baaxa dhibka uu leeyahay inta qof ay arintan waxyeelada ku geeriyoodeen وهذا حلوان فيصل وجبجبة برنامجك Somali Heritage أما أسبوع الصومالي ذا وحنفيلي dadka ku farxaya ee abaalku ugu haya inayna ahayn oo kaliya dadka Soomaaliyeed ee Canada ku nool ama gobolka Ontario ama caasimadiisa Ontario Toronto sida la socoto daafaha dunida ayay Soomaalidu intuuna cudurka bilaaban isaga iman jireen waxa la qaban jiray ciyaaraha Somali Week yes dadka iyaga ah way ku mahad celinayaan guud ahaan gabagabada barnaamijka adoo ka hadlaya haddii ay noqon lahayd xagga doorashooyinka haddii ay noqon lahayd dardaaran guud oo shacabka Soomaaliyeed siinayso oo ku wajahan isku duubnidooda iyo midnimadooda intaba maxaad oran lahayd maxamed wad maasan tahay dabcan waa runtahay oo dad badan oo dibadda inooga iman jiray ayaa jira oo today barnaamijka ay qaban qaabiyaan oo ah toddobaadka Soomaalida runtii oo ku saleysan kubadaha iyo tiiman fara badan oo yimaada dad badan oo Soomaaliyeed baa dalxiis u yimaado halkan yimaado soo arka mar waan rajaynaynaa toddobaadkaasina inuu kordhiyo Soomaali fara badan inay inoo timaado runtiina waan ku faraxsanahay in maaragtay gobolka Ontario uu noqday gobolka ugu horeeyay ee the Western Hemisphere galbeedka Europe iyo North America oo dhan meeshii clear Somali Heritage Week laga hirgeliyay ugu horeysay inay noqoto gobolka Ontario طبعا Manitoba iyaduna way nagu xigsatay waana mid arin aad u wanaagsan waana loo baahan yahay meelaha kale Soomaalidu degan tahay laftigoodana in taariikhdooda iyo hidahooda iyo heritage-kooda la xusuusiyo طبعا waxa aan ka hadlaynaa waxa weeyaan waxa inaga dhaxeeya waa dhaqankeena afkeena iyo hidaheena taas oo u baahanay inaynu xoojino inaynu muujino isku duubnaan wada socotaayo wadankan Canada ama khaasatan Ontario qoomiyadaha isku duuban waxa ay gaaraan guulo waaweyn success fiican dadkeena systemka shaqooyin fiican ku haysto waxay caawin karaan caruurteena kale yaryarka mentoring bay u sameyn karaan marka dabcan toddobaadka Somali Heritage Week wuxuu noqonayaa mid dadka Soomaaliyeed oo dhan ay reflection sameeyaan honor gareeyaan gartaan ogaadaan maaragtay waxyaabaha dadkeena faraha badan ee contribution-ka xoogan gobolkan ka sameynaya inaynu xusno inaynu ku dhiirigelino dhalinyarada yaryar inay yihiin dad taariikh leh aysan aan lagu oran maaragtay waxa tihiin dad uun dagaal iyo burcadnimo iyo maaragtay musuqmaasuq iyo dhaqan qalafsan ama xun lagu soo barbaariyay laakiin aan nahay dad ma garanaysa ay aadamaha kala la midka ah taariikh ancient ama maaragtay qadiimiya leh af hodan ah aynu leenahay loona baahan yahay in dadka kalena aynu barno inaguna aynu showcase garayno dabcan marka gobolka laynoo furo sanadada soo socdaan waxaan rajaynaynaa dad fara badan inay meelaha daafaha adduunka nooga yimaadaan khaasatan xitaa Soomaaliya inay nooga yimaadaan oo ay markaa hidaheena iyo dhaqankeena iyo wixii ay nagu dheer yihiin ayna baraan annagana aan ka faa'iideysano isuna nimaadno midda kalena waxa weeyaan Soomaalida geeska Afrika degan oo dhan waa dadkeeni weeyaan marka Somali Heritage-keenu wuu naga midaynayaa taariikhdoodana waa taariikhdeeni taariikhda halkan Ontario aynu ka sameynayna Soomaalida reer Ontario ana waxay noqonaysaa marka dadkeenu inay toddobaadkaas taariikhdaas hodanka ah ee qadiimiga ah inaynu barano afkeenana aynu xoojino dabcan waxay noqonaysaa marka mid aan rajaynayno inayna midayso isu nimaadno iskuna dhiirigelino waxa inoo qabsoomay iyo waxa aynu higsanayno aad iyo aad ayaa u mahadsantahay mudane وهاجد داود يالي صاحب يالبا وحان سو غادناي gabagabadii barnaamijka toddobaadka iyo Toronto hadii aad iminka ugu soo biirteen barnaamijka waxa marti igu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo kamid ah xisbiga NDP ee mucaaradka ah ee gobolka Ontario ee dalka Canada xildhibaanka ayaa biil uu gooyay golaha looga taliyo gobolka Ontario u suurta gashay in la ansixiyo in loo aqoonsado 25 bisha June ilaa iyo 1 bisha July ama Luulyo
asbuuca soomaalida dabcan waxaa lagu xusi doonaa guud ahaanba dhaqanka soomaaliyeed waxayna soomaalidu yeelan doontaa fursado kala duwan oo dadweynaha reer Canada guud ahaan gaar ahaanna kuwan gobolka Ontario ku baraan dhaqankooda suuban iyo weliba nolosha cuntada iyo weliba hidaha iyo dhaqanka ay leeyihiin waxa kaliya oo xildhibaanka ugu abaalgudi karnaa oo kaliya in aan maalmaha iyaga aweyneyno jidadka naloo xiro isla markaana ku soo bandhigno dhaqanka suuban aynu leenahay waxaad naga daawanaysaan Som TV anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa barnaamijka idiin soo gudbiyay mid lamida kanaan idiin soo gudbinay intaan isugu iman doonana daawadayaashan aad ka u jecelahayow intaas iyo nabadgelyo